jabigu wuxuu u muuqdaa mid degan. waa subax jimco ah, badi dadkuna waxay yihiin kuwa guryahooda horda. si ka duwan caruurtu waxay u tahay maalin mashquul ah laga bilaabo aroortii hore ilaa gabaldhici. waa subax roobaad xasilan oo aad wadooyinka ku arki karto caruur koox isku xiran misna aan lahayn goob qaas u ah ciyaarahooda. dabcan goobta ugu macquulsan ay ku kulmi karaan waa hareeraha wadooyinka iyagoo ciyaaraya qeybo kala duwan dheesha kubadda cagta. caruurnimadu waa mid ka mida horaadada aadanaha, inkastoo ay tahay waqtiga qof uusan haysan xuriyad la mid ah tan uu haysto waqtiguu dhallinyarada yahay. haddana caruurta xilligooda ugu badan waa ay ku qarash dheeshaa. halkan waxaa ku sugan caruur dhowr ah, waqti ayay ku qaadanayaan, kubad ayay ciyaarayaan, mararka qaar ciyaar dhaqameedka caruurta u gaarka ayay camirtaan. ciyaaraha saybaalka, afargooleyda, offside-ka, tuundheerada, bugeyska ayaa ugu caansan kuwa laga tixgeliyo dhankii caruurta. waxaan markaan milciso doonaa waayihii iyo caruurnimada anigoo soo ciyaari jira ciyaarta ay maanta ciyaarayaan caruurtaani. laakiinse wax walba waxaa ku fiican in amar ka qaadatid qofka shaqsiga balooniga leh, asaga ayaa ila taagan. waxaan weydiisan doonaa ama ka codsan doonaa inaan la ciyaaro, inaan baloonigiisa aan la baashaalo. maanta ma kula baashaali karaa oo balooni ma kula ciyaari karaa? way la baashaali kartaa. waa maanta maalin farxad ah oo maanta jumcada. okay, ciyaartay ciyaarnaa maanta offside. haddii aad goolkaa dhali bal ka waran, way fadhiisan kartaa. labadii hadda cadu ma isku noqonaa mise saaxiibo? saaxiibaan qaniina. waan gartay. markaana waxaan ciyaari doonaa kubaddan offside-ka anigoo dib u milicsanaya waayihii caruurnimada. waqti ayaa la qaadan doonaa caruurtaani. ciyaartan waxaa lagu magacaabaa seebaal. marmarka qaarna waxaa dhacda markii ay ciyaarta bilaabo rabto in la isku qabsado labada garab, waxayna yidhaahdaan seebaal baal lii, baalka kale lii, anigana goosha lii. haddana waxaa taagan labada garab laba ciyaaryahan ama laba caruur ah, halka goolka uu ku jiro mid kale. waxayna sameynayaan in kubadda ay isku baasayaan. kadib markii kubadda isku baasaan ay dhaliyaan kubaddaasi, qofaa soo gali doona oo isbedel ayaa dhici doona. kubadda ay isku baasay hadda weli maysa dhalin. ugu dambeynna maysa noqon, way dhashay. wuu bixi doonaa qofkaasi, bedelkiisa waa kana qof kala soo galay. qofka goolka laga dhaliyo uu baxaya, qof kala bedel. laakiin hadduu ka taabto garabka ayuu istaagaya, kan kale ayaana imaan doona dhankii goosha. ciyaartan waa seebaal, waxaa lagu magacaabaa seebaal. caruurtan aad ayuu jecel yihiin maalin jimcaha inay ciyaaraan. caruurta halkaani taagan waxay ciyaarayaan ciyaarta la yiraahdo offside-ka. waxaa goolka ku jira hal wiil keliya ayaa gool ku jira, kaasoo ilaalinaya shuduudka ama kubada ay soo tuurayaan. hadduu mid ka mid ah xidigahaas ama ciyaartaasi dhaliyo, wuxuu dooran doonaa mid inuu fariisiyo. sidoo kale waxaa u yaalo xeer, xarinjintan dheer u jeedaan ayaana qofku soo gala isagoo u jeedin oo ciyaartu ka fariisan doonaa. laakiin haddii uusan soo gal oo banaan ka soo shuudo, wuxuu dooq u yeelan doonaa inuu mid ka mid ah fariisiyo. markaarna cadowtinimo ayay yeelataa ciyaartaani. haddii uu qof xarash ku hayna asa ayaa ku fariisan doonaa. ciyaartu waxay ahayd offside. tan waa ciyaar kale oo ilmaha ay ciyaaraan, taa la yiraahdo afargooley. mid ka mid ah ayaa gadaal u soo tuuray goolka ama kubadda, mid hadduu qabsado kan kale uu ka dhaliyo waxay noqon doontaa gool, waa la bedeli doonaa. taas waxaa la yiraahdaa afargooley. laakiin dhibaatada jirta waxay tahay ciyaartu socoto waxaa meesha iska soo maraya baabuur ama bajaaj, taasoo keeni karta in hakad ay ciyaarta gasho. mar qaar naftooda ayaa halis gashaa caruurta halkaana ku ciyaaraysaa. maalinta jimcaha waa maalin ka duwan maalmaha kale, waxay u tahay maalin farxadeed maadaama aysan jirin dugsi qur'aanka iyo iskuulka. waxay ciyaaraan kubado ay kala duwan yihiin, haddii aalad offside-ka, seebaalka, afargooleyda, shantaranjiga iyo kubadda la yiraahdo buciska ama bugey bugbug, qof walba siduu u yaqaan. waxyaabahaas ayay ciyaaraan maalinta jimcaha. hadda waxaa bilaabanaysa ciyaar kale oo afargooley ah, taasoo aan annagana soo marnay idinkuna aad soo marteen.
waxaa ka soo baxa xidiga ugu saameynta badan adduunyada. magacyo waaweyn oo Ronaldinho Kuuja ka mid yahay ayaa laga soo dhaxelay caruurta laamiyada ku ciyaarta, haddana wuxuu yahay mid saaxada kubadda cagta magac iyo maqaam kale. waa farxad iyo fantaasiyo ay fursadaha jimcaha iyo khamiista ay isku gudbiyaan. waa kala darajo dhab ahaan heerarka ciyaartoyda ku ciyaarta laamiyada dhinacyadooda iyo bacaadka xaafadaha kuwa ku ciyaara. da'da 8 ilaa 12 sano ma ciyaaraan inta ugu badan kala bax ama in laba kooxood la isku saaro sidaasna la iskugu baxo. agtooda waxaa laga qiimeeyaa ciyaaraha saybalka, offside-ka, afar gooleda. marka ay da'du 14 gaaraan ayay bilaabaan ciyaaridda koox ka koox iyo in ay aadaan garoomada xaafadaha. xilligan waa isla xilliga qofka uu qaangaarayo, xoog iyo cududna uu u hayo. sidaa darteeda waa waqtigu uu jecel yahay inuu ciyaaro ciyaarta xoog iyo muquuninta ku dhisan ee tuundherada, taasoo jug iyo jilib lagu ciyaaro. muhiimad gooniya ayay leeyihiin in la barbaariyo dhalinyarada kubadda ku ciyaarta xaafadaha si ay u noqdaan kuwa meel sare ka gaara kubadda cagta. haddaba waxaan weydiin doonaa dareenkooda ku aadan dhibaatada ay kala kulmaan markay wadooyinka ku ciyaarayaan baabuurta isticmaasha halka ay kubadda ku dheelayaan caruurta. على عبد السلام maanta waa jimco waxaad ku ciyaaraysaan laami oo baabuurta aad u isticmaalaan baabuurta caqabadaha kala kulantaan caqabadaha aad u fara badan kala kulantaan anagoo banooni dheelayna ama anagoo kubadda aad oo bartiira u dhow goosha dhal rabno gaarina Soomaaliya albitran wax ku dhaaf jooji. waxaa kaloo ka mid ah marmarka qaar baabuurta inay banooni inay bujiyaan naga sii fakalaan waxaa kaloo ka mid ah anagoo banooniga wadana oo koox kale noo imaatay xaafadeena ku dheelayn garoonka ku dheelayn waxaa gawaarida barinaysa garoonka ku dheeli weynayna iyagana iska baxayaan kooxda kale. waxaa kaloo ka mid ah banooni inay ku dheelin xataa waa loola diiday marmarka qaar gawaarida badanaysa. maya waxaa ahaaya sina banooniga dheelaaye xaafadeena ku dheelaaye banooni gadaal u socday markaas asagana lugta banooniga jabisay gaariga lugta ka jabiyay. aniga magacayda Dayib Cabdi Daayib oo xaafadda bulxuwe oo banooni dheel rabno baawuraan qashayaan wax jafteen ay bujiyaan wayna yarooraan baawura iyo mootayaasha dhib ay ku qabnaa. adiga maxaa jeceshahay kalbax iyo waxa oo niyaday soo jishay koox maali jirtaa maya magacaygu waa Abuukar Axmed Abuukar waxaan deganahay xaafadda Bulxuwe. Abuukar halkaada ku ciyaaraysaa waa laami caqabadaha kala kulantaan baabuurta barkaba. caqabadaha waxaa ka mid ah anakoo wadno ayaa baawur imaanaya albitr wuxuu leeyahay jooj kubadda. waxaa kale baawur ilmaha way dardarayaan kubadda marmar qaar meelaga bujiyaa baawur. haa caqabadahan badan ana imaadka baabuurada. waan gartay markaa laamiyada ku ciyaaraysaa tusaalaha marka aad goolka u dhowdeen hadduu baawur imaado dareenkaas soo noqdaa adoo dhalirta goolka waxaan wareysan doonaa mid ka mid ah bajaajleyda ama wadaha bajaajlaha isagoo aan weydiin doono waxyaabaha uu kala kulmo caruurta. soo dhawow waxyaabaha kala kulantay caruurta ee maalinta jimcaha iyo khamiista ay ku ciyaaraan wadooyinka. waan dhabahay maalinta jimcaha anaga horta wadooyinka waa marnaa macnaha wadooyinka marnaa ciyaalkan marka meesha maalin jimca waa maalin farxad waaye iyagoo meesha banoon ku dheelaya soo mareynaa mararka qaar macnaha iyagoo dareenkooda banooni waa jiraa laga yaabaa inaan jugsiino banooni ka bojino wallaahi bilaahi والله عروت مالك جمعة وحوتها مالك فصحها إلى بينا ياران إذا كنا لامي كمان مارتيرو بين قدومين في أما شيء وحكونا ستة بريسكينا وحيابها عقبضها إن أكلكم تاني عروت بيتنا والله إن معناه وحكلكم إن أبروني كبجنو أنا جو جيدين معناها أجوكسينو هذه وحياة بدنا كلكم والله وقت هذه ويلقى إن عرور أو ذكر يارس جوج بنوني مكبوجي جوج مسيس ما يجوج مسين لكن بنون مكبوجي إن بدن وح بدن أبروني كبوجي وهي مسيس العكس كسوق قبلها بسوق وكوها بسم الله
boqol qof ka badan micnaha la hadli karo waaba ka ordanay waxaan ahay cabdifataax cabdirashiid abuukarnaani waxaan ka tirsanay idaacadda isboortiga dalka Gool FM haddaba muuqaalkan aad u jeedid sheer garay hadduu ku qanciyay